ugu yaraan 20 qof oo rayid ayaa la dilay 10 kun oo kalena waa lagu barakiciyay sabab la xiriira dagaalada u dhaxeeya mucaaradka iyo xoogagga dawladda taabacsan ee ka socda gobolka Canfarta ee wadanka Ethiopia ee dariska la gobolkan Tigray ee waqooyi bari Ethiopia. dagaalka ka socda haddaba gobolkan Tigray waxa uu ku sii fidaya gobolka Canfarta dagaalkaas oo dhaliyay kumanaan qof ay dhintaan 8 bilood gudahood isla markaana sababay in boqolaal kun oo kale ku barakacaan sidii qaramada midoobay sheegtay. Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda caalamka magaceeda loo yaqaan Nobel Peace Prize ee sanadkii 2019 ayaa ciidamo u diray Tigray bishii November ee la soo dhaafay si meesha uga saaraan ururka TPLF oo ah xisbiga gobolkaasi ka talinayay muddada dheer. Tallaabadan ayaana la sheegay inay jawaab u ahayd weerar ciidamada dawladda lagu soo qaaday amarkiisa lahayd TPLF. xukuumadda Addis Ababa ay abaabulaysa xoogag ka kala socda gobolada kala duwan ee wadanka Ethiopia si ay u taageeraan ciidankeeda oo iga hortagaan waxay ku sheegtay dandansiga jabhadda TPLF. dad goobjoogayaal oo la hadlay wakaalada wararka AFP ayaa sheegay in dad rayid ay ku dhaawacmeen laakiin jabhadda difaaca Tigray ee TDF ayaa beenisay in bartilmaameedyadaas la bartilmaameedsay dadka rayidka. afayeen u hadlay jabhadda TDF ayaa bartiisa Twitterka waxa ku sheegay inaysan dagaal kula jirin dadka Canfarta ama maleeshiyooyinka laakiin ay la dagaalamayaan hogaamiyaasha Ethiopia. ciidanka Ethiopia waxay sheegeen inay burburiyeen xoogagga TDF ee soo weeraray deegaankaasi. haddaba suurtagal ma aha in si madax bannaan loo xaqiijiyo macluumaadkan marka la eego isgaadhsiinta oo ka go'an gudaha gobolka Tigray iyo madmadowga warbaahinta ee ku saabsan waxa ka socda gudaha Tigray. dhanka kalena tobanaan gaari oo ilahayd hay'adda cunnada adduunka oo sida gargaar bini'aadanimo ayaa xaddi shalay la soo dhaafay lagu weeraray meel qiyaastii 1 kiiloomitir u jirta Samera waa caasimadda Canfarta taasoo keentay in hay'adda qaramada midoobay ay hakiso kolonyadeeda wadadaas marayay sida ay sheegtay wakaalada wararka ee AFP. haddaba dhaqdhaqaaqayaasha gobolka ayaa halkaa ka soo sheegaya bini'aadanimo aad u daran oo loo qabo gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah iyadoo beeraleyda iyo dadka kaleba lagu khasbay inay qaxaan iyadoo ay sii kordhayaan dagaaladu. gobolka Canfarta waxa uu ka mid yahay 9 dawlad goboleed ee Ethiopia caasimadiisuna waa Samera. boqolkiiba 95 dadka gobolkaasi dega waa muslimiin, tirada guudna waa 1,500,000 oo kun oo qof sida lagu sheegay tirokoob la sameeyay 2005. kolonyada gargaarka siday ayaa doonayay inay gaaraan boqolaal kun oo qof oo khatar ugu jiray inay macaluul ugu dhintaan gudaha gobolka Tigray. qaramada midoobay waxay walaac weyn ka muujinaysaa cunno la'aanta ka jirta haddaba gudaha Tigray tan iyo markii uu qarxay dagaalka, waxayna sheegtay in ka badan 5 milyan oo qof ay si degdeg ah ugu baahan yihiin cunno iyo gargaar. qiyaastii 350 kun oo qof ayaa qarka u saaran inay macaluul u leedaan, taasoo dawladda Ethiopia lafaanteedu beenisay. waxaa xusid mudan in Tigray ay soo martay macaluul aad u daran intii u dhaxaysay 1983 ilaa 1985 oo ay ku dhinteen in ka badan 1 milyan oo qof gudaha gobolkana ay ku barakaceen in ka badan 2 milyan oo qof oo kale. dagaalka ayaa bilowday bishii November ee sanadkii 2020 kaas oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo jabhadda TDF kadib weerar ay jabhaddaasi ku qaaday saldhig ay lahaayeen ciidamada Ethiopia. bishii June dawladda waxay ku dhawaaqday xabad joojin 8 bilood balse dagaalyahanada Tigray ayaa wacad ku maray inay ka saari doonaan cadawgooda gobolka.